وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مدن مدحوينه قدوميها قولها وكيلة قدوميها كحجانك قولها وكيلة قدوميها حسبك وعد قدوميها كمالقال كحسبك وطني مدحوينه كحجان دي سوماليلاند وزير هذا حلمان هذا قولياشا قدوميها قولها دحى حسبك كلمية شانانada taliyayaasha guud ee ciidamada qaranka shanaanada saraakiil xigeenka gudoomiyaha gobolka Maroodijeex maayarka caasimadda iyo dhammaan marti sharafta kala duwan dajiraha dawladda Djibouti ee Somaliland iyo dhammaan marti sharafta kala duwan ee goobtan ku sugan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee carbiska shaqo qaran oo halkan maanta ay ka joogaan goobjoog yihiin 856 wiil iyo 122 gabdhood iyo hawlwadeenada xafiiska waxaan idinku soo dhaweynayaa munaasabaddan bilan ee aynu maanta ku daahfurayno dhismaha akademiyadan cusub iyo wanqalka dafcadii koowaad ee barnaamijka shaqo qaran maanta waa maalin weyn oo taariikhda qaranka ka mid noqotay waa maalin ay noo hirgashay himilo iyo hiigsi madaxweynaheenu horseed inoogu ahaa waa maalin hamigii fogaa ee horisocodkeenna aynu hananay waa maalin soo noolaysay curfigii ku salaysnaa maxaa taqaan oo saaxadda ka saaray ayaa taqaan waa maalin aynu haloosiyayno hayaanka horumarka dhalinteenna alla waxaynu ka baryaynaa inuu tacabkeenna iyo hankeenna inoo xasiliyo mudanayaal iyo marwooyin waxaan jecelahay si guud mar ah inaan wax yar ka tilmaamo barnaamijka shaqo qaran curashadiisii hadafka looga jeedo iyo halka maanta uu marayo ugu horeyn barnaamijka shaqo qaran waxa uu ka dhashay hindisihii iyo hal-abuurkii madaxweynaha ee ku aadanaa horumarinta iyo jihaynta dhalinyarada Somaliland taas baanu barnaamijkan kaga mid noqday himilooyinkii ugu mudnaa ee xisbiga kulmiye u ballan qaaday dhalinta Somaliland xilligii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah isla markaana maanka ku haya ahmiyadda mudan ee barnaamijkaasi dhalinyarada iyo qarankaba u leeyahay ayuu lix biloodkii u horeeyay muddaxileedkiisa magacaabay guddi hawleed heer qaran ah oo soo diyaariya soona axada habkii loo asaasi lahaa loona hirgelin lahaa intii suurtagal ah barnaamijka shaqo qaran guddigaasoo ka koobnaa 5 wasiir oo kala ahaa wasiirkii waxbarashada Yaasiin Maxamuud Xiir wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac Xirsi wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed Yuusuf wasiirkii hore ee maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi iyo xogeyn gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo xogeyn u ahaa guddiga guddi hawleedkaasi daraasadeyn iyo la tashi badan kadib waxay soo diyaariyeen mabaadi'dii budliga u noqon lahaa hirgelinta iyo habraaca soo xulista ka qaybgalayaasha barnaamijka ujeedooyinka ugu waaweyn ee barnaamijkan laga leeyahay waxa weeye koow xoojinta isdhexgalka ama integrationka isku kalsamaanta solidarity-ga iyo isweheshiga cohesionka bulshada Somaliland laba kor u qaadidda wacyiga iyo aqoonta dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed dhaqameed dhaqaale bulsheed iyo juqraafiga dalka Somaliland saddex kor u qaadidda dareenka wadaniyadeed iyo sharci ee dhalinyarada iyo ku boorinta u hagarbixidda gudashada waajibaadyada iyo mas'uuliyadaha muwaadinimo afar
horumarinta kobcinta iyo bislaynta garaadka iyo feedhicilinta jir ahaaneed ee dhalinyarada 5 dhiirigelinta dhalinyarada iyo kor u qaadida dhaqanka mutadawacnimada iyo iskafaalaqaadka bulsheed ama waxa loo yaqaan social welfare 6 sugidda cadaaladda iyo usinaanta bulshada ee fursadaha shaqada tababarka iyo shaqagelida mabaadi'da asaasiga ah ee loo cuskanayo fulinta barnaamijkan waxa koow ka ah barnaamijka shaqo qaran waxa loogu talagalay dhalinyarada muwaadiniinta ah wiilaliya gabdhaba ee ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka iyo dibadda ee wasaaradda waxbarashadu ay aqoonsan tahay 2 ka qaybgalka barnaamijka shaqo qaro waa voluntary waa ikhtiyaari ma aha sida wadamada qaarkood mid ah mandatory ama khasaba qofka ikhtiyaarkiisa ayuu kaga qaybgali karaa sidaa awgeed dhalinyarada danaynaysa barnaamijka waxaa loo dhigay shuruudo ay soo buuxiyaan si ay ugu tartamaan barnaamijka 3 dhalinyarada ka faa'iidaysanaysa barnaamijka waxaa lagu qaadanayaa tartan imtixaan oo heer qarana isla markaana gobolaysan oo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay soo diyaarinayso 4 si cadaaladda iyo wada lahaanshaha ummadda Soomaaliland loo sugo waxa 6 gobol doorasho ee dalka mid kasta loo qoondeeyay tiro go'an oo ay dhexdooda ku soo tartamaan 5 iyadoo laga qiyaas qaadanayo celceliska ama reeshiyaha dhalinyarada jaamacadaha ka qalinjabisa laba iyo dhadigba lana tixgelinayo xaqa lamaanaha iyo dadka lixaadkoodu dhiman yahay ee ka qaybgalka fursadaha shaqo awgeed waxa ka qaybgalayaasha gobol kasta loo sii qaybiyay inay boqolkiiba 65 noqdaan wiilal boqolkiiba 30 noqdaan hablo ama gabdho boqolkiiba 5 ay noqdaan dadka lixaadkoodu dhiman yahay naafada muddada barnaamijka shaqo qaran ee dafcaddan koowaad waa 1 sano oo kala qaybsan muddada carbiska oo 3 bilood ah oo tan hadda dhalinyaradu ay ku jirtaa iyo muddada shaqada qaranka oo 9 bilood ah oo ay ku qaadan doonaan shaqo carbis shaqo wasaaradaha iyo ciidamada kala duwan ee dalka 7 dafcaddan koowaad ee hadda ku jirtaa ee barnaamijka wiilasha waxaa lagu xareynayaa xarunta carbiska ee darar weyne oo tan aynu maanta joognaa halkaas way ku jirayaan muddo 3 bilood ah sidoo kale gabdhaha iyo naafadu waxay tababarka carbiska ku qaadanayaan jaamacadaha dawliga ee gobolada ku yaala marka tababarka 3 bilood ay soo dhameystaan dhalintaasi wiilaliya gabdhaba waxay bilaabayaan 9 bilood oo shaqo qaran ah oo si ku meel gaar ah ula sii shaqeynayaan wasaaradaha hay'adaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida kala duwan muddada sanadka markay dhameystaan kadib waxaa si rasmi ah loogu mayleyn doonaa hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo ciidamada qaranka sidoo kale waxaa mudnaanta la siin doonaa fursadaha waxbarasho ee heerka labaad ee aynu helno markii la qoondeynayay qoondada loo sameeyay gobolada dalka 6 gobol doorasho waxaa lagu saleeyay tirada degmooyinka degmo doorashooyinka oo ah 23 degmo 23 degmo gobol waliba sidoo kale degmooyin badan yihiin ayay tiradiisuna ku salaysan tahay iyadoo taa lagu salaynayo waxaa gobolka Awdal loo qoondeeyay 220 xubnood gobolka Maroodijeex 390 gobolka Saaxil 110 gobolka Togdheer 210 gobolka Sool 240 gobolka Sanaag 330 intaa tiradeedu isugeynteedu waxay tahay 1500 oo 500 ay yihiin hablo kuna ay wiilal yihiin si loo helo cadaalad shuruudaha looga baahan yahay qofka ka soo qayb galaya shaqo qaran kow waa inuu muwaadin yahay Soomaaliland oo cadayntiisa uu la yimaada kaarkii muwaadinimada in warqadii caafimaadka inuu caafimaad qabayso soo baaraa maadaama uu bulshada meel kula noolaanayo waxa kala shuruuda inuu shahaadadiisa jaamacadda la yimaado shahaadadaasna ay soo tasdiiqdo ama ay soo cadayso
ansixinteeda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. waxaa kaloo shardiya in warqadda dembi la'aanta oo aanu ahayn dembiile, taana waxaa soo cadaynaya hay-adaha qaabilsan dembiyada. waxaa kaloo looga baahan yahay inaanu qofka ka soo qaybgeliya shaqo qaran aanu da'diisu ka weynayn 30 sano. taa macnaheedu waxa weeye waxaa ka qaybgeli kara dhalinyaradii ka baxaysay 6 sannadood dambe jaamacadaha dalka. markii hawshaas ay guddigu soo dhameeyeen guddi hawleedkii madaxweynuhu u saaray arrintaas, waxaa laga maarmaan noqotay in la dhiso xafiis shaqo qaran oo hawsha fuliya siyaasadda ay dejiyeen guddigaasu. waxaa dan la mooday in la abuuro xafiis u gaara fulinta barnaamijka shaqo qaran. taas awgeed bishii Oktoobar 2018 ayaa la aasaasay xafiiska barnaamijka shaqo qaran ee aan mas-uulka hadda ka ahay. guddi hawleedkii barnaamijka soo diyaariyeyna waxaa loo dhalan rogay inay noqdaan steering committee ama guddiga hogaaminta barnaamijka. xafiiska barnaamijka isagoo ka duulaya mabaadi'dii loo aasaasay iyo tilmaanta guddiga hogaaminta barnaamijka oo ah guddiga steering committee-ga ah, wuxuu si firfircoon uga howlgalay hawlihii kala duwanaa. waxaa ka mid ahaa isku dubaridka iyo hanaaninta qoraal ahaaneed ee siyaasadda barnaamijka. waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshe hawleed muddaysan oo xisaabtan leh oo guddiguna ay ansixisay. waxaa ka mid ah diyaarinta barnaamijyo wacyigelineed oo laga baahiyey warbaahinta kala duwan iyo daabacadda dokumentiyo lagu soo bandhigayo xogta iyo xaqiiqada iyo waxtarka barnaamijkan uu leeyahay bulshada iyo dhallinyarada Somaliland. waxaa kaloo ka mid ahaa kulan hawleed 11 ilaa 12 bishii 11aad aanu ku qabanay magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo aan isugu yeernay guddoomiyaashii gobolada 6 gobol doorasho iyo isuduwayaashii wasaaradaha waxbarashada iyo shaqagelinta. guddigaasi halkaa waxaanu ka abuurnay guddi ka wakiila heer gobol oo noqda barta loogu soo hagaago dhalinyarada codsiyadooda ay geysan karaan. waxaana guddoomiye u ahaa guddoomiyaha gobol kasta, waxaana la shaqaynayay isuduwaha waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda shaqagelinta. waxa aanu iclaaminay waqtiga qabashada araajida oo ahayd 17 ilaa 29 Noofambar. waxaa muddadaas araajidooda soo xaraystay 3146 muwaadin oo 1615 ka mid yihiin gobolka Maroodijeex. xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa diyaariyey isaguna imtixaankii laga qaadi lahaa dhalinyaradaas. waxaana ay imtixaanka u fadhiisteen isku saacad maalin kaliya 22 Disembar. imtixaankaas oo sixidiisii markii la saxayay xataa magacyadu ay qarsoonaayeen si cadaaladda loo sugo dhalinyaradu ku soo baxayso. imtixaanka waxaa u fadhiistay 2123 qof oo tartamayaal ah. waxaana la qaadanayay 1000 inan ee ugu sarreeya inamada iyo 500 ee hablaha ugu sarreeya oo gobol ah. waxaa la diyaariyey dhammaan agabkii hoygii alaabtii cuntada ee akademiyadu u baahnayd sida sariirihii, furaashyadii, bustayaashii, weelkii cuntada iyo kuwii biyaha iyo wixii kale la halmaala. waxaa la diyaariyey manhajkii tababarka ciidanka iyo kii madaniga ahaa labadaba oo ciidankuna gaarkooda u soo diyaariyeen. kii madaniga ahaana soo diyaarinay kadibna la isku dhafay saacadihii si jadwal kaliya uu noqdo. waxaa la diyaariyey labiska dhalinyarada shaqo qaran maanta labisan yihiin, aniguna aan ku labisanahay oo ciidanka qaranku gacan weyn ka geysteen. mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, halkan aynu maanta joogno 3 bilood ka hor waxay ahayd gegi bannaan oo geeda ku yaallaan. waxaa hadda ka dhisan 4 hool oo hurdada ah oo cabirkoodu leeyahay 50 mitir iyo 12 mitir oo midkiiba qaado 100 qof ay seexdaan. waxaa laga dhisay 1 hool oo muxaadarooyinka iyo lagsharada lagu bixiyo kan aynu fadhinaa oo cabirkiisu yahay 60 mitir iyo 20 mitir.
waxaa la diyaariyey oo la dhisay 2 jiko cuntada qayminta ah iyo 2 istooloo raashinka la dhigo. waxaa loo dhisay 60 musqulood iyo xamaamo isugu jira. waxaa la dhisay 2 xafiis iyo 1 istoor iyo qol baytariyada soolarka lagu kaydiyo. waxaa la dhisay dhisme 4 qol oo ay shaqaaluhu seexdaan. waxaa kaloo la dhisay qolka tima jaridda ama rayiska oo iridda agteeda ku yaalla. qolkaas ay ku rakiban yihiin 4 kursi oo cusub oo dhalinyarada dhammaantood ay ku xiirteen lacag la'aan. waxaa loo sameeyey waxyaalo kale baahi ay ka mid ahaayeen biyihii. waxaa lagu ku rakiban taangiyo biyaha oo gaaraya 140 foosto. waxaa la soo talaalay tuubadii biyaha oo hadda shaqaynaysa inkastoo xilliga jiilaalka biyuhu yaraadaan. waxaa kale oo dayactir mugle lagu sameeyey 4 hool oo ka tirsan kulliyadda saraakiisha Cabdilaahi Askar iyo 4 hool oo ka tirsan dugsiga Dhibooga. waxaa kale oo la dhisay biyogelina lagu sameeyey 10 musqulood iyo xamaama oo kulliyadda dugsiga saraakiil xigeenka ee Haragwaafi. dhinaca bilicda xaruntan waxaa la baneeyey la iskuna simay garoonka carbiska iyo garoonada kubadda cagta oo berihii loo sameeyey garoonka kubadda cagta halkan ku yaalla agteedna. waxaa dugsiga loo sameeyey iridda gelidda soo marteen oo leh ganjeelo bir ah. halkaasi waxay naga xidhay jid baa halkan dhex mari jiray. jidkaasi wuxuu tegi jiray beeralayda hoose. intii aan ku xidhnay taar dherarkiisu gaarayo 480. waxaa dherarkiisu gaarayaa 28 duub oo taar ah oo ay nagu caawiyeen ciidanka qaranku oo dherarkoodu gaarayo 467 mitir oo wajahada aan ku xidhnay. waxay naga xaniibtay wadda dhex mari jirtay beeraha tagta. taasu markaa xeradii waxay ka hakisay dhexmaristii. waxaanu ku beernay 480 geed oo kuwii harhka ah oo 100 ka midii ay timir yihiin. dhinaca korontada iyo codbaahiyaha waxaa akademiyada loo rakibay korontada cadceedda dhaliso oo 4 kilowatt awooddeedu gaadhayso, taasoo ka kooban 18 sixni ama panel iyo 12 baytari iyo 10 biito ama birahan leydhka ee gaarkooda u taagan iyaguna oo dariiqa iyo security light hareeraha ka taagan. sidoo kale waxaanu kulliyadda saraakiisha iyo 2 dugsiga kale u rakibnay 16 sixni panel oo kuwa solarka iyo 8 baytari kadib markii baytariyadii hore ay daaleen. dhinaca kale waxaa hoolkan ku rakiban systemka codka ama sound system oo gidaarka ku jira samacadihiisu ku xidhan yihiin oo loo isticmaalayo muxaadarooyinka iyo lagsharada la bixinayo. mudan iyo marwooyin dhammaan hawlahan soo sheegnay waxay ku suurto galeen fadliga Ilaahay iyo dadaalka xukuumadda. casharada ugu mudan ee ka baranay muddadii hawsha aanu ku dhex jirnay waxa weeye marka la xoojiyo iskaashiga iyo wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah. marka la horumariyo collaborationka waxa loo yaqaano qorshe hawleed hufanna la sameeyo waxa fududaanaya hirgelinta shaqada. ummadana waxa u baaqanaya kharash badan oo ka bixi lahaa. shaqaalaha xafiiska shaqo qaran imika aad bay u kooban yihiin. marka laga reebo shaqaale hoosaadka 5 qof kama badna. haddana hawshaasoo dhan waxay ku suurto gashay collaboration waxaa qabtay hay'adaha dowladda oo dhan, ciidamada iyo hay'adaha kale dowladda, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqagelinta, arrimaha gudaha kulliga. mudane madaxweyne, dhalinyarada shaqo qaran waa aqoon-yahano han iyo himilo fog leh oo naftood hurayaal ah. waxay u darban yihiin inay xirfadooda aqooneed ugu adeegaan ummadooda iyo qarankoodaba. waxaa ku duugan mawhibooyin ama talents badan oo u baahan in la baaqbaaqo.
markaan sidaa leeyahay meesha ka saari maayo inay shiri karaan boqolkiiba 1 iyo 2 guracan kuwaasoo qudhooda aan ku dadaalayno sidaanu ugu soo dabaali lahayn dhaqanka wanaagsan si ay u noqdaan xubno waxtar leh oo bulshada ka mid ah guud ahaan dhalinyaradanu mudane madaxweyne waxay kaaga mahadnaqayaan oofintii ballanqaadkii ay kuugu codeeyeen waxay kaaga mahadnaqayaan sida xaqsoorka iyo daahfurnaanta leh ee barnaamijkan loo maamulay waxaa kaloo kaga mahadnaqayaan soo noolaynta kalsoonidoodii shakhsiyeed ee ay kaga maarmeen cid ay ku tiirsadaan iyo gacan qabasho mudane madaxweyne inta aanan hadalkayga soo afjarin iyo ogolow inaan hortaada uga mahadnaqo cid kasta oo gacan naga siisay muddadii hawsha aan ku soo dhex jirray aan ugu horreysiiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha guud ee ciidanka qaranka generaalada taliska kulliyadda saraakiisha iyo dugsiyada saraakiisha iyo saraakiil-xigeenada macallimiinta ah waaxda dhismaha ee ciidanka iyo injineeradooda ee akademiyadan dhisay mudane madaxweyne waxaa hubaala in waaxda dhismaha ee ciidanka qaranku ay taabo galeen oo tijaabadii ka baxeen una baahan yihiin in la qalabeeyo injineeradoodana abaalmarin la siiyo waxaa kaloo u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha 6 gobol doorasho oo si hagar la'aana noola shaqeeyey waxaan u mahadnaqayaa wasiirka agaasimaha guud isuduwayaasha gobollada ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo hawl badan nala qabtay muddadii aan hawsha gacanta ku hayn waxaan u mahadnaqayaa wasiirka agaasimaha guud iyo isuduwayaasha gobollada ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada oo wax badan nala qabtay waxaa kaloon u mahadnaqayaa guddoomiyeyaasha maamulka iyo macallimiinta jaamacadaha camuud hargeysa berbera burco nugaal oo laascaanooda iyo sanaag oo gacanta ku haya tababarka 500 oo hablood oo shaqo qaran ah waxaan u mahadnaqayaa wasiirka horumarinta jidadka oo naga caawiyey dhismaha laamiga aad aragteen ee quruxda badan ee dhammaantiin soo marteen waxaan u mahadnaqayaa wasiirka xanaanada xoolaha gaafadhi oo noogu deeqay cagaftii noo banaysay garoonnada iyo ereyada aanu kaga shaqaynay oo dhan oon muddo dheer haysanay waxaan u mahadnaqayaa maayarka hargeysa ku-xigeenkiisa iyo xoghayaha oo iyaguna aan naga gacan lahayn oo wax badan waxay noo keeneen rugleydii adkeynaysay boodhkii jiilaalka iyo booyado iyo waxyaalo badan bay nala qabteen iyaguna waxaan u mahadnaqayaa howlwadeennada xafiiska shaqo qaran weliba waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa madaalayaasha maxamed ismaaciil iyo deeqa dhamac oo shaqaalaha ah oo aan la-aantood hawl badani dhaqaaqdeen waxaa kaloon u mahadnaqayaa wasiirka agaasimaha guud iyo wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo dastuurka oo noo ballan qaaday inay qayb laxaadle ka qaadanayaan tababarka madaniga ah ee dhallinyarada waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha iyo xubnaha komishinka xuquuqda aadamaha maxamed baaruud oo iyana u diyaara inay kaalin mugle ka qaataan tababarka madaniga kuma soo wada koobi kare halkan intii aan ilaaweynaha iga raalli ahaadaan inta tirada badan ee aanan halkan ku wada xusin ee dhiirigelinta iyo taageerada nala barbar taagnaa dhammaantood way mahadsan yihiin intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu